dadkii Mareykan joogay qaasatan reer Columbus ama Mareykan magaalooyin kala duwan maalmahan lacag ayay ka dhargeen kadib markay maal gashadeen ku biireen shirkad la yiraahdo LSSC. shirkadan waxay kireysaa iskuurada marka dad badan ayaa galay rag iyo dumar wixii Columbus joogeen oo Soomaaliyeed shirkadan ay bilooyinka la soo dhaafay isku ku yaaceen dad badan oo marka kasamkay ama dad badan oo aqaano aqyaarta saaxiibada ayaa maalmahan igu qalqaalinay inaan ka qayb qaato shirkadan galo hatta familkayga ay kamid yihiin balse intaan gelin ka hor ayaan baaris dheeraad sameeyay oo shirkadan laga taajirayo aqal Soomaalida ee lacagta faraha badan ka sameeyaan maalin walba iyo bil walba naarta meel walba joogtaan salaamatiin waa maxamed faarax de maalmahan shirkad LSC laho ayaa xaraan ugu haysto LSSC shirkadan intaan inaan saaxiibanahay ayaa dhowr mar bilaas bil tashkiilinayay si aan ugu biiro marka maalmihii ugu dambeysay waqti isku helnay ani asaga wada sheekaysanay waqti siiyay bal waxaan ku yiri shirkadan maxay tahay ii sheeg wuxuu yiri shirkadan waa iskuur la kireenaya maalintii lacag helaysa aniga $2,000 aan gashtay bishii waxaa iga soo dhaco lacag fiican marka soo gal adiga waa already ani $1,200 aan soo ceshtay marka waa ka marka waxaan ku yiri shirkadan intee ka dhisan tahay maxay qabataa xafiisyashan intee ku yaalaan customer su'aalo badan aan weydiiyay su'aalahaas kama helay sidii uga jawaabnaantii ma la dhicin balse wuxuu yiri lacag laga sameeynaya qof walba ku jiro adeegal maxaa cabsanaysaa 2,000 helaysaa telefonkaygu qaaday appkiis download gareeyay marka inta badan kor appka LSSC ee shirkadan app store-ka iyo Google Play-ga laga download gareyn karo sareenku tagay kabacdi soo qaadaniyo wax waaba tuugnimo wax u eeg shirkadde hadiiba shirkadan app store-ka laga download gareyn karin soo arin tuugnimo u meeg soo aran liya u meeg ma wuxuu ugu yiri waa caadi shirkadan waa run ha cabsanin sidii ayuu ku soo download gareeyay 3 beriyo trial oo baaris aan galay marka waxa ay soo baxday shirkadan kuma taalo Mareykanka Canada kuma taalo Yurub kuma taalo xafiisyana kuma leh addressna kuma leh customer service telefoonna kuma leh shirkadan meel kaga taalo Mareykan ma lahan sharciga Mareykanna ma qabto oo ma jiro labo shirkadan cid leh ilaa hadda lama yaqaan ownerka leh ama madaxweynaha ama hogaamiyaha ama CEO-ga ama board memberka cid leh lama yaqaano shirkadan saddex website-ka markaad gashid xataa kuma cadeynaya shirkadda address-keeda telefonkeeda macluumaad dheer kuma siinayo website-ka waa website iska daaq ah website-ka waxaa la lssc.ltd kaliya wadamaha ku jiro app store-ka iyo Google Play ka soo download gareysan kartaa ku leeyahay LSC-ga laakiin waa been wax ka jiro ayadana ma leh sidoo kale waxaa jiro Ponchat waxay dhahayaan oo meel iskala sheekaysto hadii wax ka halaabaan iyo lacagta qaabka loola baxo oo ayadana jirto oo dadka ay ku jiraan intaas markaan arkay baaris kale dheeraad aan sii galay anoo Google adeegsanayo anoo ChatGPT adeegsanayo anoo adeegsanayo website-ka la yiraahdo betterbusinessbureau.org website-kan waa hay'ad maxalli ah oo protect gareyso dadka investorada sideenoo kale Mareykanka oo raba shirkadaha inay maal gashadaan marka hay'adan Mareykanka waxay leedahay Mareykanka ka dhisanta waxay leedahay shirkadda LSSC ee u taagan Lightning Shared Scooter Co Limited waa scam waa been wax ka jira malaha dad yahow Mareykanka ka taxadara saas cad ayay leedahay markaad akhrisid xataa waxay ka faaloonaysaa qaababka red flag ee shirkadan been ku tahay waxay sheegaysaa app store in
la download gareyn karin google playga in laga download gareyn karin xafiisyo inay lahayn adresse inay lahayn intaa idiin sheegay CEO inay lahayn owner inay lahayn board member inay lahayn shirkad investor oo dadka maalgashanayo oo saxa waxay leedahay dadkii mulkiilayaashii tusaale ahaan idinka dhaadhiciyo shirkadda apple oo kale shirkadda microsoft oo kale walmart oo kale dad madaxay leeyihiin xafiisyo fadhiyo la yaqaano la tixraaco haddii wax dhacaan shirkadda la maalgashada dadka public maalgashadeen loo raaco ama shirkadooyinka caadiga ee la maalgashto sida Warren Buffett shirkadiisa oo kale oo investor caana weeye macnaha waxay leedahay sharci iyo hataa shirkadaha Soomaaliya ayaa leh address sharci domain address website daabshiil oo kale amal oo kale hormuud oo kale shirkadan LSSC malaha website-ka BBB wuxuu leeyahay xataa website domainkooda mar walba way bedeshaa si loo tiragareen oo scam loogu dhejin mar walba website-ka way bedeshaa marka bal waxaa iri Mareykanka wuxuu leeyahay waa beene bal sidoo kale waxaad fiirisaa ChatGPT haddana aadi oo aan geliyey Line Insurance Score Company maxaa waaye ma scam baa mise waa been wuxuu ii soo saaray report dhan oo ballaaran oo kaga hadlayo inta qof oo ka dacwota Mareykan shirkaddan inay Ponzi scheme tahay ee fake tahay in dadka leh ee leeyihiin Hong Kong ayaa 2018kii aan ka furnay waa iskuur Hong Kong kaliya aan ka shaqeynaa iskuur gadnaa ay leeyihiin ama ka kireynaa wax ka jirana ma lahan caddeen ma laha inay iskuurkaas kireeyaan xafiisyo inay ku leeyihiin Hong Kong cidda leh ma sheegayaan gunaanadkii waxay leeyihiin ChatGPT shirkaddan ha laga fogaado haddii qof Mareykan ah kuula yimaadana local consumer protectionkaaga u sheeg macnaha waxaa waaye qof haddaad aragtid Mareykan ku promote gareynayo shirkaddan LSSC dowladda u sheeg sidoo kale wargeli hay'adda BBB waa bbb.org waa idin sheega waxaa lahaa Better Business Bureau waa hay'adda qaabilsan dadka Mareykanka ah oo u qaabilsan u sheegto shirkadooyinka ay maalgashanayaan iyo in kale marka ilaahay amarkiisa haddana waa sii furaado waxaan aaday bal Canadaan fiiriyey waxaa iri dad badan haddii Mareykanka ka dacwoonayaan bal Canadaan fiiriyey Canada waxay waaba cad yihiinba dowladda Canada ayaaba caddee dadkeeda waxay ku leedahay shirkaddan LSC ha laga dheeraado waa been waa scam waxaan booqday website-ka Canada la yiraahdo Canadian Securities Administrators hay'addan waxay leedahay waa hay'ad ayadana protectionka u qaabilsan dadweynaha Canada oo raba inay maal gashadaan shirkadooyinka ayaa waxay ka caawisaa shirkadii fiiga iyo shirkadii sax ah u sheegtaa dadkeeda waxay ku leedahay reekiraday ha maal gashina shirkaddan markaan arkay review dad badan oo Canadians ka caawanayo oo leh shirkaddan waa scam ha la iskaga cararo waxay sheegtaa iska dhigtaa in Canada xafiis ku leedahay Canada inay iskuurro kirayso waa been caddeen ma lahan xafiis ma lahan wax ma lahan ha iskaga carartaa la yiri waxaan usoo laabtay haddana Mareykan marka review dadkii Mareykanka ku cabaadayay waxaan tagay Reddit oo aan reviewgan akhriyay dad badan oo ka cabaadayaan arkay oo dhahayo shirkaddan ha laga taxadaro waa been waa iskuurar waan baxay haddana bal waxaan iri bal YouTube fiiri YouTube marka LSSC waxay ku leeyihiin website waxay ku leeyihiin account waxaa la yiraahdaa LSSC official channel Lightning Shared Scooter Company waxaaba dhex fadhiyo nin marka oo markii ugu horeysa arko qof ka hadlaya live ninkaan magaciisa waxaa la yiraahdaa Denny wuxuu isku magacaabaa oo ugu qorada General Manager of LSSC on May 31, 2025 ayuu video 11 minutes and 14 seconds kaga hadlaya soo geliyay ninkan wuxuu u egyahay wiil dhalinyaraa markaan qoyska daadiisa 30 ilaa 35 tima dhaadheer Hispaniga sawirkiisa waa sheer gareey aragtaan oo faanayo wiilka xogaa accent ayuu leeyahay
keligiis ayaa hadlayo video ka hadlayo waa very poor video xataa fiican maahan ka hadlayo wuxuu ku faanayaa wuxuu leeyahay hay'adeena LSSC US Securities and Exchange Commission ayaa waxay siisuu leeyahay shahaado hay'adan waxaa la yiraahdaa SEC waxay xukuntaa dhammaan ganacsiga Mareykanka ayay enforce garaysaa 1929 la sameeyay shirkad walba oo Mareykanka way baartaa waan baara marka waa Google gari hatta ayda website-keedan gale waa ka waay shahaadada aan idin la sheegaynaa wuxuu leeyahay shirkadahan waxaa la siiyay April 18 2025 waa been cad waa kadaa'ibnimo midii ugu weynay ninka kaliya oo the general manager oo shirkadda LSSC beentan weyn uu sheegayo intaha ku arag waa aamini waay waa been cad waan baaray waa idin sheegay website-ka dowladda SEC qof ay shahaado siisa ma qariso waa shirkad weyn oo caan la yaqaano ana waa been video kale wuxuu ka hadlaa sidoo kale wuxuu leeyahay xafiis ayaa Dallas ku leenahay waa been xafiis Dallas kuma laha Texas wuxuu leeyahay alaabta hadda ka bacda operationka Mareykan ayaan keeni doonaa iskuuraan keeni doonaa wuxuu leeyahay cafeteria LSSC ah ayaan Los Angeles California ka furana wala wala yaab waa war cajaa'ib isi dhiibtaa ilaa minadkiisa waa daawaday comments waa aqriyay kuwa iskaga camiray adreesya la aqoonin unknown dad ma qina comments dad bixinay aan u maleynay isla shaqeeyaan comments kana ma badna waa 47 comments videogan wuxuu soo galiyay and ma gordhow soo galiyay sidoo kale waan baaray marka LSC dan YouTube-da kana sii galay waxaan kaloo ku arkay kale dad madow ah oo qaaradda ah oo kaliya African American maaha qaaradda oo dhahay Dallas aan joognaa ama xaflad dhiganaya kaliya wax cadaan xataa kuma jiro literally intaan baarayay wax video ah iyo waxayada wax cadaana ama qof ka shaqeeya hay'adan Danny oo the general manager basan ka arkay inta kala madow u badan xataa su'aalihii reviewgi marka imaada Reddit waxay sheegayaan in shirkadan ee badhacdo dadka minority-ga ah dadka cadaanka aysan ku jirin dadka lacagaha laga dhaco oo investorada gunaanadkii intaan baarayay shirkadda LSC waan fajacay mana anaa xanaaq waxaan dhahaa dadkayga ma waxaanay maal gashanayn ma qof arag dhahay 2,000 3,000 5,000 10,000 maal gashaday qofka markuu qof u keeno waxa ma baara miya aqligu ilaahayna siiye aaway iyo maskaxdu ilaahayna siiye aan wax ku kala baar lahayn cadaanka iyo madowga wax cad iyo wax madow بس دميرو دان راعده وايو عاشي هبلايا لعك سميسا كليه واي جاجي بي تي يبي بي بي وحو دهايا dadka ugu horeeya oo lacagaha ka sameyn doono shirkadan LSSC waxa waay dadkii mar hore maal gashaday dadkay keeneen ayaa lacag ka sameynayo laakiin marba inta dad cusub galayaan shirkadda LSSC ee maal gashanayaan ee lacagtooda gelinayaan shirkadda LSSC way jiri doontaa ilaa xoogaa muddo laakiin markay istaagaan LSSC dadka new investorada ah waayo marka uu cadaan doono arrintan inay tahay Ponzi scheme arrin iskaama oo fake waxaan soo xasuustaa arrin 2008-2009 Mareykanka ka dhacday nin caana oo Mareykana oo la yiraahdo Bernie Madoff nina aqoon ma laha wuxuu ahaa investoradii ugu weynaa Wall Street shirkad ayuu lahaa asset ah oo dadka investorada ayuu lacag ka qaadi jiray malaayiin dollar caana waa weyn more than 30 something years
مرة نيو استوقع سنشو حكومة the president نين عانو وحوها يهودو لآمنو ودادك مال قشدان شركة ديس صدن إسدح سنو وليجيس أليهيس ما مال قلين وحنا لحدن إيشان بليون أو دولار داد ليهين أيوة بصدي وحو سمايا كانوا العكا قادا كانوا سيا كانوا العكا قادا عاشو سيا حمدو سيا محمد سيا ليلو سيا جيمس سيا كليا 33 years percentage نمر البحدة فائدة دواي لفاها كلام بيكر وحي أيو اسكو عليها إلا مركي دنبا 2009 ودبا قلي من حسابيانا بوسن جوغا دبا قلي SEC دا مركي دنبا دبا قشي لعوادي وحي سيبا إنو يا بونزي سكيم وحانا كجرين ولقيسنا $1 وحكومة مالقلين أما اسكور راه هذا أما كوب عانا أما كوب بيها هذا كليا لعاها دادك أيو انفستردو كقاضو إلا لين آمنو وايه أيو اسكو إلعلن جري مشارفين برسنتج إنو سعرين جري شركة LSC مركا ChatGPT جلسيد بي هايد الله هاي مريكان كاد فيرسيد وحي كوليدا هاي وحي مال جلسة مالها دادك انفستردا أيو اسكو إلعلسا لعكت كليا qof walbana waxa laga rabaa inuu dad keeno waana run aniga ninka hadda dhiirigelinaya inaan shirkadan soo galo inaan ku xirnaa telefoon wacay kuwa keenay marka inaa kuwa keenta saa lacag u sameeysaadi iyo lacag waa sameyn kartaa maalin walba on off ba meel ka dhigaysaa oo $67 ayaa sameynaysaa weekii 300 ama 250 sameeysaa depends on lacagtaad gelisay لكن على كل حال مهمته وحاواي وأنا ضد كنتها صار عكو سميش قال لي إذا قضويني عشيء مغايات لقيناي كلام زهاي مالمان عشان فري قال ينا بحنس سو حرنس لازم شركتنا هلا قالوا هلا يسخرع عشان يعنفذنا بحنس وأركي وفيرناي لكن وقت ويان كبارو وحنا وبسيط مركات بارتد waxaa kuu soo baxaayo wixii runa wixii beena walaalayaal meel walbaad maraykan joogtaan ama caalamkan ee shirkadda LSC xataa Kenya ku taala East Africa waa la yaab oo hadaaya maal gashado shirkaddan waa la isku dhacaa waxaa ii soo baxday intaa baarista waday shirkaddan iskaaminay tahay been tahay dadka laba si aan kala qaadaya kuwana waa kuwa maal gashado ku jira hadeertaan kuwaas waxaan leeyahay lacagtiina sida ugu dhaqsid badan kala baxa انت اذن كل عين لعاكتينا كلابحا الماكو مال قشتين قف كلنا هاو ييرنا هذا كبعدي باريتان سمي اذن كهدرتان حتى يكون هذا باريتان سمي نتكلم هذا الله وحاواي كوان ولي قلين او ربعين قلان سيدو كله باريتان سمي وحاقو صباحيو انت waxaan maal gashan oo $1 ama $2 meel aad iska gelin ama $10 ina shirkaddan beenta aqlu ilaahay ku siiyo maskaxa ku siiyo maanta cilmiga telefoonka ku jira baar hana maal gashan ayaa aniga maxaan faarax ku leeyahay shirkaddan ka carar intaas ayaa waxaan ku soo afmeerayaa shirkadda LSC de maalmaha lacagay nugula waalay wax walba bilaa dhamaaday leeyihiin marka Ponzi scheme-kii Bernie Madoff ama Charles Ponzi oo ahaa 1920 in Italian American asagana oo ninkii ugu horreeyay oo sidaan keeno fikraddan ninkii keeno in dadka inta lacag la qaado lacagooda isku celiyo la siiyo wuxuu ahaa in la Charles Ponzi 1920 American waxna ma maal gashin jirin dadka ayuu lacag ka run jiray wuxuu jiray shirkadaha idin maal galiyay lacagooda isku celin jiray ilaa markii dambe dii asagana la qabto sida Bernie Madoff loo qabtay Bernie Madoff $65 bilyan dhowsaday aakhira soo xabsi ku jiro dhintay sidoo kale Charles Ponzi marka Soomaaliyeey waxa maal gashanayno lacagta hadda naga baratay aan ilaalsano aan iska fiirino waa maxaan faarax oo idinkaga tagayo amaana Allah videogana dhamaan la wadaaga asxaabtiina walaalihiin familidiina iyo dadka raba inay
ka digtoonaadaan shirkadda LLC qarayaan rajana